Arsenal waxa ay booqan doontaa Manchester City maanta oo hadda kulan ay wada yeelan doonaan labada kooxood ee ugu sareeya horyaalka Premier League. Labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay, laakiin labada kooxood ayaa laga yaabaa in ay waayaan xidigahoodii laf-dhabarka u ahaa guulahoodii ugu dambeeyay. Kooxaha ayaa mar kale ku soo baxaya kaalinta koowaad, City iyo labaad Arsenal ee miiska kala sareynta xilli ciyaareedkan cusub. Pep Guardiola ayaa soo jeediyay in Kevin De Bruyne uu haysto fursad uu kaga qayb qaato kadib markii laga saaray ciyaartii ay kooxdiisa barbaraha Ever la gashay Inter Milan ee tartanka UEFA Champions League Arbacadii. Laga yaabay in maqnaanshihiisu uu ka yara xasaasin doonadii hore. 33 jirka waxa uu leeyahay 1 gool iyo 1 caawin ciyaarta horyaalka, iyadoo Erling Haaland uu ka qayb qaatay 9 cajiib ah oo ka mid ah goolashiisa. Kabtanka Arsenal Martin Odegaard ayaa sii maqnaan doona si kastaba ha ahaatee kadib markii uu dhaawac candhowga ah ka soo gaaray isaga oo u ciyaaraya Norway. City ayaa xilli ciyaareedkii hore si guul ah u soo dhaweysay maqnaanshihiisa dheeriga ah ee De Bruyne, iyaga oo ku sii jeeda horyaalka afraad ee xiriir ah Premier League. Laakiin iyadoo farqiga u dhexeeya labada kooxood uu sii yaraanayo, Guardiola ayaa sheegay in ay sabab u tahay awoodda sii kordhaysa ee Arsenal si ay ula qabsato ciyaartoydooda ugu fiican. Taasi micnaheedu maahan in khasaaraha Odegaard aan laga dareemi doonin. Sanadba sanadka ka dambeeya, Arsenal ayaa soo fiicnaanaysa, waxaana sabab u ah in ay wax badan geliyaan si qoto dheer kooxdooda. Guardiola ayaa yiri, laakiin waa kabtanka Arsenal, qof walba waa uu garanayaa sida uu u fiican yahay ciyaartoyga, sida uu yahay ciyaaryahan aan caadi ahayn. Arsenal ayaa sidoo kale la tacaalaysa jadwal gaar ah kaasi oo ay ku ciyaari doonto kulanka saddexaad oo xiriir ah meel ka baxsan 8 maalmood gudahood, iyo dhammaan muhiimadda sare loo qaadayo. Waxaan tan u diyaarinaynaa tan iyo xilli ciyaareedkii hore. Maamulaha Arsenal Mikel Arteta ayaa yiri si cad, waan naqanaynaa jadwalka, waxaana ognahay inay aad dhif u tahay in lagu ciyaaro xaaladahan 3 kulan oo waaweyn oo banaanka ah 8 maalmood gudahood. Laakiin waxa ay ahayd sidii ay ahayd, saasi daraadeed waxaanu u diyaarinaynaa taas jir ahaan, maskax ahaan iyo xeelad ahaanba. Ka hor xilli ciyaareedkii 2023-24 City ayaa badisay 7 kulan ee hore Premier League oo ay gurigeeda ku ciyaarto, iyadoo guushii ugu dambeysay ee Arsenal ku gaarto Etihad Stadium ay ahayd Janaayo 2015.